bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkiigu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo uhuru ka diiday dalab kaga yimid shiinaha oo ka hadlay wararka sheegaya in saldhig military ay ka furanayaan Soomaaliya Itoobiya oo soo bandhigtay ay ku sheegtay in ay ka mid yihiin al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeen ugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa Uhuru Kenyatta ka diiday dalab kaga yimid kaasoo ku aadan in Uhuru yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in Uhuru Kenyatta khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kana codsaday inuu yimaado magaalada Muqdisho si loo xalliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in marka hore ay dalka isaga baxaan dowladda Kenya sidoo kalena ay faragelinta ka daysa arrimaha gudaha sidoo kalena ay kalluumaysiga sharci darrada ay ka wado badeena ay joojiso taasoo Uhuru Kenyatta inuu fuliyahay ku adkaatay maadaama sifa sharci darra ay hadda uga kalluumaysanaysa badeena inoo xukumisay maxkamadda cadaaladda adduunka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICJ sidoo kale ceel waaqayay sifa sharci darra waxay uga qabteen doorasho iyagoo Axmed Madoobe ku dhiirigelinaya in doorasho boob ah uu halkaasi ku qabto sidoo kale waxay ciidamo ay ka joogaan gobolka Gado sidoo kale Jubbooyinka ayay ciidamo joogaan kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan isugu jira beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay ku dhibaateeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalabyadaasi hordhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ay joojiyaan howlaha sharci darrada ah ee dalkeena ka wadaan iyo sidoo kale siyaasiyiinta ay lacagaha soo siinayaan intaas kadib ayuu madaxweynuhu sheegay in uu ka fakari doono in uu dalka yimaado Uhuru si loo xalliyo wixii taagan balse inta ka horeysa oo ay howlahaasi dalkeena ay ku hayaan dowladda Kenya in Uhuru Kenyatta aan laga rabin dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa marka uu dalka madaxweyne ka noqday waxa uu bilaabay in uu la dagaalamo wadamada shisheeye ee caqabada ku ah dowladnimada iyo sidoo kale dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dowladda Kenya ayaa waxa ay markaasi bilowday in ay hagardaamayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo waxqabadiyadiisa iyadoo isku dayay in ay cadow gudaha dhexdiisa ay uga abuudho balse madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka guuleystay cadow walba oo gudaha sidoo kalena dowladda Kenya ayuu waxa uu ka joojiyay qaadkii inooga imaan jiray dalkaasi sidoo kalena waxa uu kaga guuleystay dacwadii badda sidoo kale madaxweynaha ayaa kol hore isaga oo ka hadlaya arrimaha Kenya ka dhinaga dhaxeeya waxa uu tilmaamay in ay lacag malaayiin dollar ay damceen in ay ku siiyaan si badda kiiskeeda loogu dhameeyo wada hadal balse madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in qabiilka iyo qaranka uu doortay qaranka sidaas darteedna maxkamadda cadaaladda adduunka uu ka warsugayo jawaabteeda iyadoo jawaabta maxkamadda ay noqotay mid dan u ah ummadda Soomaaliyeed sidoo kale dowladda Kenya ayaa tilmaantay inaysan u hoggaansameyn amarka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka balse tan iyo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waday dhismaha ciidamada badda si dagaal toos ah loogu qaado kalluumaysatada Kenyaatiga ee sifada sharci darrada uga kalluumaysanaya gudaha badeena Uhuru ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ka codsaday in uu yimaado dalkaasi loo xalliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya balse madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kaga horyimid dalabkaasi kaga yimid Uhuru Kenyatta sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda Kenya ay culays badan ku hayso ummadda Soomaaliyeed marka ay safrayaan iyo sidoo kale
ganacsiyadooda ku yaala gudaha dalka Kenya. Ma ahan markii ugu horeysay Uhuru Kenyatta ka dalbado dalab amaba uu dalbado inuu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, balse madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ixtiraamaya qarannimada iyo qabka ummadda Soomaaliyeed ayaa mar walba ka hor yimaada dalabkaasi ka yimaada dhinaca dowladda Kenya in Uhuru Kenyatta yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah Shiinaha ayaa ka hadlay wararka sheegaya in saldhig military ay ka furanayso Soomaaliya. Dowladda Shiinaha ayaa waxay iska fogeysay inay raadinayso sidii ay saldhig military uga samaysan lahayd gudaha dalka Soomaaliya. Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo wareysi siinayay warbaahinta ayaa ku sifeeyay xogta been abuur ah hadal horey uga soo yeeray taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa dhawaan wareysi laga qaaday waxa uu ku sheegay in Soomaaliya iyo China ay ka wada hadleen qorshaha dhismaha saldhig military ee China ka dhisanayso gudaha Soomaaliya. China ma raadinaysa in uu saldhig military ka dhisto Soomaaliya, sidoo kalena Soomaaliya kama aynan wada hadlin mowduucaasi. Ma garanaya meesha xogtaasi laga keenay, ayuu yiri safiirka China oo fadhiya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, China iyo Mareykanka ayaa loolan xoogan ugu jira saameyntooda geeska Afrika iyagoo diblomaasiyiin gaar ah uu soo dirsaday arrimaha wadamada ku yaala bariga Afrika. Labadan wadan ayaa mid kasta u doonaya inuu xiriir wanaagsan la yeesho dalalkan si uu maalgashi ugu samaysto ugana faa'iideysto kheyraadkooda dabiiciga ah. Qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah Itoobiya ayaa soo bandhigtay xubnaha ay ku sheegtay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay 34 xubnood oo ay sheegtay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Dowladdu waxay intaasi ku dartay in dadka la soo qabtay ama laga soo qabtay Addis Ababa iyo qaar kamid ah deegaanada dalkaasi. Qabashada xubnaha ayaa waxa ay sakaashaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Itoobiya oo gacan ka helaysa ciidamada amniga dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale Oromada. Geeska kale, dowladdu waxay sheegtay in xubnahani ay maleegayeen falal lid ku ah nabadgelyada dalka Itoobiya, balse la qabtay ka hor inta aysan fulin falkii ay qorshaysteen xubnahaasi inay fuliyaan. Sidoo kale waxay dowladdu xustay inay jiraan xubno kale oo xiriir la leh xubnaha hadda gacanta lagu hayo, kuwa oo ku kala nool dalalka dariska sida Soomaaliya iyo Kenya, kuwa oo iyaga laftooda lagu daba jiro. Ma ahan markii ugu horeysay ay dowladdu soo bandhigto dad ay ku eedeynayso in ay yihiin Al-Shabaab. Hore waxay sidaan kale u soo bandhigeen dad ay ku sheegtay in ay amni darre ka wadeen gudaha dalka Itoobiya. Dadka ay dowladdu hadda soo bandhigtay ayaa intooda badan waxaa laga kala soo qabtay deegaanada Soomaalida iyo Oromada, walise dowladda deegaanka kama aysan hadlin dadka ay soo bandhigeen federaalku. waa saaxiibayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furitaan, warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka leh.